gabayga saddexaad waxa la yiraahdaa wacdi gabay insha Allah habeen dambe waxaan keeni doonaa gabay la yiraahdo wasaab oo dadkan dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku habawday insha Allah taala gabay la yiraahdo ina yaraan kula hadlayo leeyahay adeer waxaan maandooriya baashan wiida iyo waxaan la cabo ha cabin marka gabayda dhalinyaradu habeen dambe bay maaragtay u badan yihiin gabaygan wacdi waxaan kula hadlayay dhalinyarada Soomaaliyeed laakiin waa gabay qof kasta oo muslima wax taraya ama runtii taasiir iyo raadayn weyn ku yeelanaya gabaygu marka hore wuxuu ka hadlayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ku wacdiyay waxaan leeyahay diinta barta waxba jira oo dhulkan aynu ugu nimid wiil iyo gabadh Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah baasida dhaqamada ay dhulkan ugu nimid waxaad ku arkaysaa 3 sano bay isla socdaan way isguursanayna way isbaranayna war 3 caruur dhalan lahayde waxa 3 sano iska baranaysaa may way subinaynaayo waa nacam waxyaabaha dhaqanka mid baad ku oranaysaa telefoon buu ku jiraa imka soo goranaya saaxiibo faleeb bay igu socotee hayga qasin oo faleebadu aad dadka sikaraadka ah oo shuban ku dhacay baa la oran jiray faleeb baa ku socotee marka dhalinyaradan kula hadlayay waxaan kala tusaaleynayay nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo u noolaa ahdigii rasuulka sallallahu alayhi wasallam xitaa nabiga sallallahu alayhi wasallam intuu darin ku jiifsaday hadiiskii macruufka aad garanayseen oo ay ku sawirmatay jirkiisa oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam saxaabadu damceen inay u keenaan furaash ma ana wali dunya rasuulka sallallahu alayhi wasallam dheeraa illa ka annaka raakib oo kama qanay sallallahu alayhi wasallam ani adduunya maxaan isku nahay biir iga qaada khamiiskan rasuulku markuu dhintay inaan dirham iyo diinaar midna laga dhaxlin gabdhuhu qabay rasuulka sallallahu alayhi wasallam aan waxba aanay ka dhaxlin adduunku inuu maaragtay aan wax qiimo lahayn inkasto oo hadii aad xoolo heshid hadii aad dumar badan guursatid hadii aad maxaa la yiraahdaa adduunka magacaagu meel kasta tago kolba uu malakumood ku sugayo waxa kale oo ku jirta qiyaamaha iyo dhibaatada uu leeyahay gabayga xagga ugu dambaysa waa tawxiid ilaahay waxdaaniyadiisa xagga ugu dambaysana waxaan ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ku dhacday ayaan ugu ducaynay ilaahay subhanahu wa ta'ala dhibaatada ka kor qaado dhalinyarada Soomaaliyeed saxa akhlaaqdiina dhalinyarada Soomaaliyeed saxa akhlaaqdiina sumcadeenu waa diinta sare ha loo qaado oo sooyaalka taariikhdu yay inaga seeraarin yu idin sarayn galku waa suniyo waabaaye siciiru rabaa inaad gashaan lana sifowdaane ka sariigta saaxiibtinimo sinaday keentaaye 3 sano fareen baanu nahay way isla soconaadu fale baygu socotiyo saqdhexe suuq la wada aado dhaqan suuban maahe ka hara suniyo waabayda dhaqan suuban maahe ka hara suniyo waabayda salaadaha tukada oo saxo soo marabadanka saka la isku leeyahay xajkana socota dheeraada sadninkii helaa waa inuu sadaqad dhiibaaye waa inaad sinaantiyo sharciga sax u taqaanaane waa inaad sunna nabiga iyo salafkii raacdaane ka saahida adduunyadu silsilad socota weeyaane haddii ay samaan leedahay oo lagu sarraynayo ama siinad ay leedahay oo laga salgaarayo suubanaha nabigii ayaan cidisa dhaanteene sabenkii saxaabada ayaan siliicahaadeene war siirada akhriya dunida waa kala samraysaane war siirada akhriya dunida waa kala samraysaane aan sii akhriyo oon sunnaha sadarka soo qaato suubanaha nebigii balaan idin sifaaleeyo salawaatullaahi adduun uu ka saahiday saambuu ku jiifsaday intuu saaray dhinaciisa saacada markii uu hurday buu sare u soo toosay sawir baa jidhkiisii ku hadhay saanku adag jiife saxaabadu furaash bay damceen inay ku seexshaane oo ay sariir iyo barkimo sare u qaadaane suubanuhu hadalku ku yidhi lama salugayne safar baan adduunyadan ku ahay waan sagotiyaye ama seeto farasaan ku xidhoon geed yaryara seexday sidaasaan ka dhiganahay haddaad sax u fahmaysaane sariir iyo furaashyaanku arag sonka gurigayga sariir iyo furaashyaanku arag sonka gurigayga sawjaadkii nebiga lahaa saynabiyo caasha war sawjaadkii nebiga lahaa saynabiyo caasha
safiya iyo sawdiyo xafsiyo hooyadii salaama saddex baa saadii gabayga iyo siinkii geli weyday sagaal bay ahaayeen qofkii saxu yaqaanoowe suubanuhu maantuu dhintay samadu dhilowday soof ugama tegin xoolo iyo geellasaanyadaaye sardhow dabaq sabaaxiyo ma jirin sara la jeexdaaye sayfin iyo akoon uma furnayn iyo sanduuq weyni salabkii dagaalkana ninbaa suuqa kaga haystay war siirada akhriya dunida waa kala samraysaane inkastoo sareedada adduun saami lagu siiyo ama aad sarkaal sare tihiyo saajac lagu dhaato oo sawjaj raalliya iyo wiila lagu siiyo oo soof adduun iyo ammaan lagugu saameelo sawirkaagu saygooltagu saaco magacaagu mar haddii sideedaba wakhtigu sugayo ruuxaaga oo mawdku kula saa ku yahay malaha sii raace safka diinta gala aakhiro baa layska sugayaay inkastood 60 iyo 70 midhar saruu dhaaftid inkastood 60 iyo 70 midhar saruu dhaaftid ama tiro 90 xidhid oo saa'id 100 dhaafto aad sanooyin badan nooshahayo sama ku naalooto gabow baa ku saarmo adduun siinad si maleehe safka diinta gala aakhiro baa layska sugayaay saacadii qiyaamiyo markii suudhka la afuufo faidaa jaa'at isaakha saacadii qiyaamiyo markii suudhka la afuufo arligana silsaal galo dhulkuna yarehe saalteeyo samaawaadku waa qaawayo siinadii maleehe dhulka saxar ma saarno rabbi baa simay awooddiisa buurihii salka laga rujay suuf siday tahaaye gabadhii sagaalku u go'ayo loo sitirinayay u sababo suudhkii ilmoho sahal u soo dhaafa siqirkiiyo carruuraha cirradu madaxa saamayso sabigiiyo carruuraha cirrada madaxu saamayso siqiirkay jeclayd hooyadii sidatay ay tuurto saaxiib sokeeyiyo xigaal seere kala oodo saciiro iyo haawiye ayaa seeta soo furaane siraadkii ku yiil jahannabaadan sahal ku moodayne haddaad saalix noqotaan rabbigay weydin saamixiye haddii kalese soomaaliyay waa sidii kale ee iimaanka aliimaan yaziid wayanqus iimaanka saa'ida xaquu sare u qaadaaye siiro hadduu ka noqdana waad silloon tahay ilaahow subxaanahu adigaa saatiro jiraaye adigaa salaamiyo la baxay saamiciyo xaakim sidaa doonto adigay fushaa ama sargoysaaye malaa'iga sujuudiyo adaa nebiyo soo saaray adigaa sifaad sare leh iyo magacyo suusuuban samaawaadka adigaa dhisayoo qurux ku saameelay dhulka saaray buuraha baddana seere kaga yeelay sagalnoo darooriyo adigaa samada roobeeye sabuulnoo macaan iyo dhulkana sarac ka soo saaray adaa aadan suureeyayoo saxay khaliiqdiisa sinta bidixda saablayda iyo saafay sarartiisa xaawana ka soo saarayoo sawjad uga yeelay oo sidhkiisii adiga rag iyo dumar ka soo saaray aniguna su'aaliyo dacwaan saa ka leeyahaaye sidii nebi ayuub baan gacmaha sare u taagaaye ilaahow sabaankiyo ka qaad saxalka soomaali ilaahow sabaankiyo ka qaad saxalka soomaali 19 sano ayaa saban dul saarnaaye si walba u dhammaado dadkii soos yarba hadhaaye sabool weeye caydho dadkii soofkii ka idlaaye sabuulkii ma baxo oo arligii saxare weeyaane saqdhexaannu nahaye rabbiyow sahan ku khayr sheego oo nabaddu siriq bay gashaye sahal ku soo boodo dadweynahay saamicahayow saxaabal aamiinta salligii rasuulkana ku dara saafi bay noqoone salawaatullaah calayhi wasalaam kaasuna wuxuu ahaa wacdi